كيناني وهيا كبتوك لغوضا كريري ذا لبردقتي حسبي قوا كالقات كتابكونا وبتستو كراهية ذا نغي من ماضي ليسكو كذي قنيكا كوبتي لهاي هدي دالكالو لكحو كريدي وادي بوي كوران كورنيكي لقو كوكالي سيتاغتاي كعدوكونا وشعبيغا كليها فريغا بوكي كعدوكونا وشعبيغا كليها فريغا بوكي واللي كمود بينونا كيكي فرتو ويسوغالي كعدوكونا وشعبيغا كليها فريغا بوكي كعدوكونا وشعبيغا كليها فريغا بوكي واللي كمود بينونا كيكي فرتو ويسوغالي بالله waxaan baaq adag u direeyaa gudida beesha gudidii hore garadag iyo tan dambe ee Burco lagu magacaabay waxaan halkan baaq adag uga direeyaa leeyahay wixii reerka soo kala dhex gala ama dhalintu ay ku kala tarafaarqado ama ay ku kala tagto waa wax ininkeena saaran xisbigi uu maqan yahay xisbigi uu maqan yahay waxaanu ku maqan yahay waa musabixi waxa loogu dhiibay Burco hotel Plaza annagoo ah dhalinyarada ama taageerayaasha xisbiga kulmiye ee gobolka Togdheer gaar ahaan bariga Burco waxaanu halkan ku cadeynaynaa inuu afduuban yahay shirweynaha xisbiga kulmiye ee mudaysan bisha tobnaad 4 ilaa 6 ee ka dhici doona magaalada Hargeysa waxaanu fakarkaas la qabnaa musharaxa gudoomiye ee xisbiga kulmiye mudane Maxamuud Xaashi Cabdi xilkii gudoomiyaha ee xisbiga kulmiye waxa uu madaxweynihii hore kugu wareejiyay muddo ku siman 45 cisho gudahood isagoo fulinaya xeerkii xisbiga kulmiye iyo isafgaradkii kala dambeeyay ee waayeelka labada daraf ka soo kala jeeda mudane Axmed Maxamuud Siilaanyo iyo mudane Muuse Biixi Cabdi ee ka dhacay Burco gaar ahaan Hotel City Plaza 2008 adigoo isla amintaaba sheegay in golaha dhexe uu ku ansixiyo gudoomiyaha xisbiga kulmiye marleyba in lagu wareejiyo gudoomiyenimada waxa kale oo aad marag ka tahay heshiiskii aad doorashada ku gashay iyo labadii kulan ee ka kala dhacay 2017 ee ka kala dhacay Hotel City Plaza Burco iyo 2 Hotel Green Plaza Hargeysa ee ay kala hogaaminayaan labada suldaan ee beelaha Subeer Awal iyo suldaanka guud ee beelaha Habarjalo Suldaan Xasan Suldaan Cabdiraxmaan iyo Suldaan Cabdilaahi Suldaan Cali Muuse oo lagu go'aansaday in haddii madaxweynuhu ku guuleysto doorashada inuu wareejinayo gudoomiyenimada xisbiga kulmiye kuna wareejinayo sidii aadba lagu wareejiyay muddo ku siman 45 maalmood ee heshiiskii xisbiga kulmiye dhigayay balse waxa aad ilowday ballanqaadyadii aad la gashay waayeelka waxgaradka iyo siyaasiyiinta aqoon-yahankii dhammaan haldoorkii xisbiga kulmiye u soo halgamay adiga oo xilliga aad wax doonaysay dhammaan heshiisyadan u arkayay wax sharci ah markii aad talada aad ku fadhiisatayna u arkay waxa weeye sharci darro taasina waa nasiib darro kugu habsatay mudane madaxweyne Muuse Biixi haddaad u badheedhay iyo haddii talo lagugu siiyeyba waxaanu ku leenahay xisbiga kulmiye jihada aad ula kacday wuu
waa tuu ku burburi lahaa xisbiga kulmiye madaxweyne annagoo ah dadkii ku soo doortay waxaanu saluug weyn ka qabnaa xukuumadda aad hogaaminayso iyo sida aan hufnayn ee aad maanta u hagayso kulmiye oo khatar ku ah jiritaanka xisbiga kulmiye ugu dambayn waxaanu kuu soo jeedinaynaa inaad xisbiga kulmiye ku soo celiso hannaankii uu muddada dheer ku soo caanamaalay una wareejisid si niyad sami ah aad baad mahadsantiin iyo munaasibadan qiimaha iyo sharafta badan leh ee aan ku taageerayno siyaasad maxamuud xaashi cabdi runtii inagoo ka dareen ceelinayna taageerada weyn aynu hayno siyaasad maxamuud xaashi cabdi isagoo nin siyaasi ah aqoon-yahana dowladdii 7 sano hagaysay dalkan iyo shacabka reer Soomaaliland uu ka ahaa ka soo qabtay 2 xilka duulista iyo madaarada dalka gobolada dalka markii dambena uu ka ahaa wasiirka iyo mashaariic badan ayay ka fulisay gobolada dalka iyo degmooyinka dalka 7 sano ay hagaysay xukuumaddaasi maalin kasta waa arkiiseen iyo asbuuc kasta meel kasta xarig baa laga jarayay meel kastana maalin asbuuc kastana waa la dhagax dhigayay intii uu qabsaday Muuse Biixi Cabdi hal asbuuc ama maalin waaxida ama sanadba ma arag meel uu dhagax dhigayo iyo meel uu maxgaranaysa xarig ka jarayo waxa wanaagsan qofka bini'aadanka ah wuxuu qabto inaad ku amaanto waxaanu qabanaad ku dhaliisho run ahaantii xukuumadda uu garowdan ka yahay Muuse Biixi Cabdi waxaan ku dhalinaynaa wax qabad la'aan ka jira gobolada bariga iyo burco iyo gobolada barigeeda waayo waxaan qaban gobolada buukan fulin wadadii isku xidhaysay gobolka Sanaag iyo gobolka Togdheer halkeedii bay taagan tahay garadag buu kaga tagay Axmed Maxamed Siilaanyo dawladii uu hogaaminayay Axmed Maxamed Siilaanyo garadag buu kaga tagay garadag meena taagan tahay 3 sano oo Muuse Biixi Cabdi hogaaminayay dalkan wax laalay wax mashaariic dalka fulay anigu ma garanayo xaqiiqatan wax wanaagsan inaad hadalka xaqiiqda ah aad istul taagto wixii uu qabtay Muuse Biixi Cabdi yaanu ognahay oo dalka iyo shacabweynaha reer Soomaaliland uu qabtay runtii waan ku amaanaynaa laakiin muxuu qabtay iyadoo sidaas anagu waxaan taageersanahay waanu aysanahay siyaasi maxamuud xaashi cabdi ayaanu aysanahay waxaan leenahay siyaasi maxamuud xaashi cabdi mudane halkaaga ayaad ku doorantahay nin dooran baa geerida khudbadii wasiirkii hore madaxtooyada maxamuud xaashi cabdi hadalkii qiimaha iyo qaayala uu ka jeediyay go'aankii uu ka qaatay xisbiga kulmiye iyo waliba halka uu maanta uu ka taagay musharaxnimadiisa inaynu ku bogaadino oo aanu ku taageersanahay halka uu maanta marin yahay waxaan aad iyo aad u support gareynayaa oo hadalkaygu ku dhan yahay halkii bayaankii aanu soo saarnay ee dhalinyaradu soo saartay haddii la yahay dhalinyarada gobolada bariga Sool Sanaag iyo intaas bayaankaygu ku dhan yahay waxaanu u sheegaynaa cid kastoo ay khusayso haddii ay tahay madaxweynaha iyo haddii ay tahay qolyaha xisbiga kulmiye afduubtayba caawa inaanaan ka tegin waxa la wani saboonteen baa beri hore waxa israacay 2 nin baa israacay marka labadii nin say wada socdeen baa xoogaa kamid ah markii wada socdeen baa markii dambe waxa ka soo horbaxay libaax baa ka soo horbaxay libaaxii markii ka soo horbaxay baa mid kamidi libaaxii dhagax ku tuuray markuu dhagaxii ku tuuray ayaa libaaxii soo kacay markuu libaaxii soo kacay baa kii dhagaxa ku tuuray uu cararay markuu cararay baa abaar isagoo sii ordayay buu arkay ninkii kaloo libaaxii ag taagan markaas waa soo caray meesha maxaa ku taagay kaasuu yidhi adeerada dhagaxa ku tuuray maana ku tuuray maxaan uga cararayaa waxaan leeyahay xisbiga kulmiye ka carari mayno xaq uma lihiin kuwii ka soo shaqeeyay baanu nahay kuwii xaq u lahaa baanu nahay hadaa yahay maxamuud xaashi iyo hadaanu nahay annaguba xoogayagii xiniyahayagii dhaqaalahayagii xuduudeedii intuba waa ku jira garabka dhalinyarada xisbiga kulmiye gobolka Togdheer in badan baan waxaanu ku saagnay hawlahayaga iyo shaqadayada inta waanu ku saagnay maanta in la yiraahdo dibadda ka tihiin waxaanu yeelayna ma waxaan leeyahay Muuse hadii maanta ay tahay hadii ay cid ka cararayso adiga ayaa xaq u leeyahay inaad ka carartid bayaankaygu halkaas ayuu ku nahay haweenka gobolada bariga burco mudane maxamuud xaashi cabdi baaqiisi ayanu aad iyo aad baan u taageersanahay waxaanu qaadacaynaa afduubka
xusbigii kulmiye uu ku haysto madaxweynaha mudane muuse buuxi cabdi sidaa maxaan hore loo sheegay dad ka cararaya ma nihin waa dadkii baanu nahay maxaan ku raday xusbiga ku soo dhintay xaaladda maxaan ku raday iminka uu ku maqan yahayna waa xaalad aanan ka adkaysanaynin maxaan ku raday qofkii aan war u haynin xusbigan cidii ka soo shaqeysay sidoo ku yimina waxaanu leenahay caanan in lisay loogay nin kastoo keen waxaan madaxweynaha baaq baan u dirayaa waxaan leeyahay madaxweyne sidii mudane axmed maxamed maxamuud Siilaayo uu kugu wareejiyay muddo 45 cishaa sidii oo kale inkasta la raagtay imika 3 sano marayso oo daanad xaqba u lahayn adigoo madaxweynihii maxaan ku raday Soomaaliland oo dhan inaad hadana xusbiga haysato inaad sida ugu dhaqsaa badan le aad uga tanaasushid oo ay khalad nagu tahay afduubkaas waxaan leeyahay maxamuud xaashi cabdina libaax inta bulbuli ku taalo bahal ma cuno garabkaaga ayaanu taaganahay kikada loobaya asiga baruursaday kikada loobaya asiga baruursaday inagu kulmiyaynu nahay kuwii halka baynu nahay xornimada kaamilka kifaaxa soo galay markay qofto toosin jiray inagu kulmiyaynu nahay kuwii halka baynu nahay xornimada kaamilka kifaaxa soo galay markay qofta toosin jiray